toddobaadka dhaqanka waa barnaamij sanadkii mar ay qabato jaamacadda Simada ee magaalada Muqdisho waxayna ugu gol leedahay sidii sare loogu qaadi lahaa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. barnaamijkan oo socon doona muddo 4 cisho ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay wasiirka hidaha iyo tacliinta sare, aqoon-yahano, abwaano, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Simada ee magaalada Muqdisho. abwaanada iyo ardayda wax ka barata jaamacadda Simada ayaa goobta ku soo bandhigay gabayo iyo sidoo kale ciyaar hidaha iyo dhaqanka. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Oduwa, gudoomiyaha jaamacadda Simada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay sare u qaadida hidaha iyo dhaqanka, asagoona ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka. Culays aad u tiro badan uu ku jira luqadii oo ka baxaysa afkii waxbarashada. sababtuna waxay ka baxday afkii shaqaalaysiinta. dastuurka dawladda Soomaaliya oo kumeel gaarka ah oo hadda lagu shaqeeyaa wuxuu qorayaa in luqadda rasmiga ah ee waddankan ay tahay luqadda afka Soomaaliga ama Carabiga lambarka labaad. Ingiriisku kuma jiro. waxaan rabaa inaan hubisaan professor iyo dadka kale oo akhyaarta halkan ka yimaado dawladda dhan waxay ku wada hadashaa Ingiriis. wasiir la hadlaya wasiir oo af Ingiriis u qorayaa arkaysa sababtuna waxay tahay wasiirku af Soomaali ma qori karo. annaga oo jaamacadan iyo dadka kale oo nala midka tacliinta ka shaqeeya ay dadaal inay saaraan ka mudan in juhdi aad u tiro badan lagu bixiyo afka Soomaaliga ee naga dhaxeeya. wasiirka hidaha iyo tacliinta sare Ducaale Aadan Maxamed oo gunaanadkii madasha ka hadlay ayaa u hambalyeeyay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Simada sida ay isugu xilqaameen kor u qaadista iyo soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. hadii aanu dhaqanka iyo munaasabadaha iyo xafladuhu waxay tusaan wixii la qabsaday iyo waxa la rabay in la aado ayay u tahay baraarujin iyo wacyigelin baa munaasabaduhu ay ka jawaabaan. laakiin munaasabada ka hor ayaa waxay tahay waajibka la rabo in la sameeyo cilmi baaris aqoon ku dhisan. waxay tahay in la abuuro cilmigii. labadaas shaqo in cilmi la abuuro iyo in la baaro baaritaan cilmi ku dhisan la sameeyana waa labada ujeedo ay jaamacadu u samaysan tahay. Cabduqaadir Axmed oo Cable TV magaalada Muqdisho.